ها 4 إلى جمعة مرينا هردم من الفصحين أنت من الفصحين حبسي كوها حبسي نمك قاسل وهايو حبسي رون أهواي أو لده كيتسيوت أو نجيب ديسرت كتالا لوgu hayo oo mid u weyn xabsiyaasha u weyn wadanka marka meel kasto waxa ka arkaysaa xasuusta oo nimanka lagu hayo anaga ka hortana lagu hayo oo kala maanta imaanabo darbiga sawir oo gaasa la burburiye ku yaala oo ku qoran tahay qasad al-jadida new gaza xabsi kasto waxa ku yaala magacayaasha nimanka oo joogeen abu ala abu san abu sidaas duceen quraan ninoo qor hooyadiisa raali ahoo inuu xabsi ku jiro hooyadiis u qoray markaas سان إن هذا دراسة دولك عن حتى اللي قلت طورة أنا حتى مركب والجيد أنا وكعمها يحير أنا قمارك حتى وقد عاي مركب أيد كدي بقى هذا مركب أيد أرك قمارك إن لو ده مركب أنا حتى واحد قمارك إن إيدا يسين واي وأنا كحيلة مركب ما أجي ماشي أصلا عنده ونحرين كعمها ونحرين يهين شفاء عبد الرشيد عبدي waxay kamid ahayd dadkii boqolaalka ahaa ee bishan horaanteedii marayka qaza isku day inay xoog ku galaan oo ay jabiyaan go'doominta inkastoo ciidamada Israa'iil ay ka qabteen xeebaha kadibna halkaas laga soo masaafriyay waxay noo suurta gashay inaan waraysi la yeelano shifa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga marka ugu horeysa bal waxaad ii sharaxdaa shifa maxaa kugu dhaliyay in aad u bareerto safarkan oo qatartiisana ay badnayd marka ugu horeysa waxa rabaa dadka dhan inaan salaamo laakiin su'aasha ugu horeysa sababta u baxnay waxay ahayd dadka inta ugu badan waxa ka imaanayna wadamo European ah oo dawladda Israa'iil la shaqeyso marka filan oo kale wadanka aan ku dhalada ku kore hadda waxay haysataa arms deal la sameynaysa dawladda aad xiriir weyn u dhaxayso marka dareen anaga waxaan ugu jirto anaga xataa lacagtan canshuurteena iyo noloshana waa la gelinayaa in ummadda Palestiniyiinta la laayo marka inaan isku dayno wax inaan ka qabano waxa ka qaban karna anina waxa haystaa history ah inaa doomo noocan oo kale kore oo doonto ogahay inaa kori karo oo dhibaato inays ii keenaynin marka waxa arkay opportunity oo inaan wax qaban karo marka saas u kore waa gartay bal safarkii marka inooga sheekay shifa doon inkastoo aad tiri taariikhiyan dooyaha wax raaci jirto waa safartay laakiin waa kala duwan yihiin dooyahan oo kale oo mid la oran karo qatartiisa way badan tahay way marka xagee ka baxdeen imisa maalmood waa sii socoteen safarka bal waxa naga siisaa sawir guud ha project weyn ahaa oo waxa laga imaaday 55 wadana laga imaaday 500 waxa ahayn boqolaal waa aad ugu badnaan dadka volunteerska imaaday wadamada laga imaaday filan xataa waxa ka baxna 10 anaga markii ugu horeysa waxaan Barcelona doomaha ugu horeysa waxay ka baxeen Barcelona 3 bishii August kadib anaga waxa aan Tunisia Tunis magaalada la dhaho Tunis waxay dina ka baxnaa 4 bishii sagaalaad laakiin xogaayro nagu dheeraatay doomaha Tunis yaaleen waxay ahayd doomaha kulunku lagu soo saarto oo ma ahayn doomo oo aad u fiicnaa marka dhibaatada weyn ugu horeysa nagu dhacdo waxay ahayd dad badan laga tuuray meesha waxa la lahayd inay noqotiin waa because doomo lagu filan ma haysana marka Tunis marka joognaa dad badan soo noqdeen marka ani markaas waxay dina soo noqdo laakiin waxa doortay inta Tunis ka soo noqon lahaa filan u soo noqon lahaa ina Malta aado because waxa la sheegay Malta doon in hal mid doon inay wali taalo marka Malta waxa ka baxay xumlana 19 bishii sagaalaad doontan raka baxday 3-4 maalin ku qabanay flotilada waxa ku qabanay Crete agteeda waa gartay Fila baa ka tagtay Barcelona tagtay Spain kadibna Tunisia tagtay kadibna Malta tagtay marka Tunisia dad badan baa waxa sheegtay in laga reebay doonyihii oo baadama aysan bixi karin waayo markaad ka tagteen Malta Greega sii marteen mise toos baad u baxdeen toos ma loo bixi karin because doomaha ilaa kaas inay aadaan benzine ma ku filna marka wuxuu u baahan yahay fuel cusub in la soo qaato marka marar badan waa la istaagay marka ugu horeysa waxaan leeyahay doomihii ugu horeeyay Tunis ka bixeen inay Sicily ku istaageen Catania magaalada la dhaho laakiin anaga waxa ku qabanay Crete agteeda Crete xataa ku istaagnay hal maalin Crete marka maalin sabti ah habeenkeeda ah baxnay ilaa Crete ilaa inta la qabto waa soconayna markaas waa gartay imisa maalmood ka sii socoteen markaad ka baxdeen Malta markaa ka baxna qiyaasteeda wax waaye ilaa maalinta qabanaysa nal qabta ina soconeen 9 maalin oo kale waa gartay inta badan waxaad isticmaalayseen baraha bulshada oo aad ku soo gudbinayseen safarkiina marka ma waxay ahayd inaad
dadku ku wacyigelinaysaa inaad safar u socotaan oo qaza aad u socotaan mise amnigeeni laftigiina aad u isticmaalayseen maxaa keenay inaad inta badan fariimaha internetka soo dhigayseen projectka ujeedada ugu weyn waxaa waa in humanitarian aidka cuntada daawooyinka caanaha ilmaha in loo geeyo gaasa laakiin midda ku xigta waxay ahayd in mediada attentionkeeda in lasoo geliyo gaasa kadibna waxaa ku raadinayna xataa inaa pressure saarno dowladeenkana because wadamo konton iyo shan wadana laga imaaday qof kasta inuu isku dayo dowladdiisa inuu pressure saaro inay wax dhahaan inay dhahaan gaasa dagaalka laga soco genocide in la joojiyo waaye in la fasaxo waaye cuntada in loo geeyo marka pressurekaasna waa rabinaa keeno waa gartay waayahay shifa hadda ka hor doonyo kala baxay samuud ay ka mid tahay waa la qabtay taariikh bay u lahayd israa'iil dhowr doonyo oo kala duwan inay qabatay oo ku socday marka qaza bacdama go'doomin ay ku hayso marka ma dareemaysa markaa qatar adiga iyo dadkii kula socday dhaqaaqayaasha ahaa in aad halis u bareereysaan ها project doomaha inay baxaan waxay bilowday hadda 20 sano way jirtaa doomo badan aan baxeen 2010 kamida ugu darnaa dhacdo oo ah mid doon Turkish ah 9 nin lagu dilay kuwa hadda sanadkii ugu dambeeyay xataa baxeen waa la qabto ognahay marka aad waa isku diyaarinayna inay dhici karto in la qabanayaan riskiyaal waa ogaan inay jirto laakiin waxaa ku talgalayna waaye in dad badan aan baxeen hadda wadamo badan oo culus passport culus leh laga soo baxay in kaas marka protection xoogaa inay siin doonto waa gartay waan u imaan doonaa markii la qabtay waxa dhacay adigu waxaad ahayd dabcan qofka kaliya oo Soomaaliya inkastoo laakiin wadanka Finland aad degan tahay dhalashadiisa aad haysatid marka sidee bay kula ahayd inaad tahay qof kaligiis oo Soomaaliya mise waxa ka muhiimsanayd inaad isku baahisateen arrimahaasi bini'aadantinimada ma ugu muhiimsantahay bini'aadantinimada laakiin midda kale arkay waxay ahayd dad badan wadamo badan Tunis oo kale aad wadamo badan muslimiina laga imaaday marka Turkey Malaysia Pakistan Bangladesh Tunisia Morocco Mauritania gruubo badan ay haystaan marka anigu marka jooga xataa waa dareemaya xogaa muhiim inaad tahay Soomaalinimada xataa inaad soo saarto in wadamo muslimiinta dhan la isku dayo in laga caawiyo oo la baxo laakiin guudan wax waaye genocide waa arin culus ah waa ma aha dagaal yar oo meel ka dhacay waa wax weyn oo lagu sameynayo xataa anaga lacagteena marka ani dhinaca Finland aad muhiim waxay u tahay sababta Finland wala shaqeynayso dawladda Israa'iil Soomaali ma dhihi kara inay complicit tahay sidaas Finland oo kale marka dhinaca Finland pressure ka saaro Finland la tusiyo waxa sameynayna Finland ka sameynayna qalad inay tahay kaasna aad muhiim u ahayd marka Finland waxa kaga timaadeen 10 qof ha isku darkan xumaleena marka ugu horeyso 10 inaan ahaan ma ko 10 ahaan laba waxa ka baxda Barcelona intana kala todoba waxa ku aan Tunis wiilna ku aad Sicilia laakiin damaadku waxa dhacday 6 qof baxday inta kale waa soo noqdeen way marka maxaad isleedahay marka waa ka bedesheen aragtidii dawladda Finland oo Israa'iil kula shaqeynaysay wax ma ka bedeshay safarkaas aad gasheen ها mid ugu horeyso waxa Finland horta media markii la fiiriyo ma laga hadlaynin arintan oo gaasa aad ma looga hadlayn hadii laga hadlayna propagandada Israa'iil aad loo soo saaray marka waqtiga jidka ku jirna iyo waqtiga aad ka xabsi ugu jirna waxa malana ummad badan inay soo kacdo waan waxa igu cusbeed ina arka Soomaali badan oo interest badan markaas ku kacdo oo waxa u malana xogaa yar ummadda Soomaaliyeed inay ka badan u soo kacdo interest siisa oo media attention siisa laakiin Finland xataa way igu cusbeed because marka oo kale marka ka soo noqonayna ana Greece marka ku soo degna Greece waa wadamada Southern European ka Talyaaniga Spanish ka Greece kaba ayaga protest badan ay sameynayeen shaqo badan ay qabanayeen dhulkooda inta soo bixin ba xataa marka diyaaradda ka soo degna waa arkayna boqolaal qof ay imaadeen inaan soo fiiriyaan marka ana waxa joog ahaan dhexdeena finish waxa dhehayna marka Finland u noqon waxa maleyna hooyo iyo aabo ay family bas inay noo joogaan laakiin marka imaan waxa arkana meesha xataa diyaaraddan xataa inay noo imaado dad badan marka kadib aan noo sheego markaas waqtigaas telefoon xataa ma haysanin telefoonadu waa iska tuurnay marka inta sanad qabanay marka ma ogeyn runtii wax ka dhacaysa Finland ama outside world kan waxa ka dhacayo marka waxay ahayd surprise oo faraxtina noo keenay in aragna Finland xataa maalmaha maqneen maalmaha xabsi ku jirna especially in interest badan oo media attention badan la siiyay dhibaatada oo gaasa ka socoto iyo xabsiga dadka ku jiraan iyo anagaba marka macnaheedu waxa weeye tilaabadii ay qaadeen waxa weeye in wax ka bedeshay baad moodaa ha noqoto warbaahinta waa dareemaya because anaga sabab badan u baxnay mid ugu horeysa of course waxa aidki humanitarian aidki inaan keeno anaga ka horna project dheer waa doon badan aan baxeen ka hor keena 3 doon way gaartay kaas marka ma ahayn wax oo ku talgaleen ma dhici karto oo kale
ودعي كرتا وكنت الكلين إن إلا last minute مركن الخبنا أنا وأقول وين دونتين لاتني سيدات ماري مال nautical miles على ده كيلومتر